qof baa yimiday dukaanu xagga ka dhistay jiifkana ma uusan soo mareen caqabada iyo nacayb jiifka ka yimida dadka loo soo mariya meeshaas marka waxa ka timid caqabada ah qofkaanu inuusan dadkiiba tixgelinaynin qofka Soomaaliya sidoo ugu dhiiraday in deegaan oo aanan joogin dad laga yaabo muslimiin aanan ahayn luqaduusan fahmaynin inta dhax galo dukaan iska aasaasto laba jiingad isku kawsado qaabkee ugu dhiiradeen Soomaalida wallahi mar hadaa fiiriso hadaa u fiirido danta Soomaalida marmar waxay tiraahdaa waa diin danta qofka hayso ayaa waxay sameynaysaa way sheeb gareynaysaa qofka inuu wax walba uusan ka leexanin Soomaalida waxay tiraahdaa wax saas gowracani geedka ma waabto marka qofka Soomaaliga ah wuxuu ku qasban yahay inuu survive gareeyo meel alle iyo meeshuu isiraado ku survive gareyn kartaane asagoo aanan u fiirinin bari maxaa ka imaan karo ayuu galaa waxa caqabada marka ma jireen oo dabcan dukaanka deegaanka laga furaayo kale caqabado ama ganacsi la xiriira ama maaragta bulshadii isdhexgalkeedii la xiriira oo dadku ay la kulmayeen ma jireen xilligaas walaal South Africa horta way kala duwaneeday dhulkaas aan ku sheegayo oo ilaa Limpopo ilaa North West ilaa Gauteng Limpopo ha u badnaato dhulka ay degan yihiin Twaanaha iyo Suutuga tuulo walba waxay leedahay qoodsi waxa la yiraahdaa jiif ama Soomaalidu waxay u tiraahdo caaqil ayagu marka waxay caado u lahaayeen ama dhaqan u lahaayeen qofkii tuulo kale ka yimaado tuuladan inuu daga rabo inuu sac soo gado caaqilka u keeno yimaado asagoo saci wado uu yiraahdo caaqila waxaan rabaa inaan dadkaaga ka mid noqdo tuuladana aan dhinac ka dago caqabadaas koowna qabsatay hadii aan dadkii ku horeeyay meeshaas nahay naga qabsatay marka dadkii waxay ahayday wuxuu u arkay disrespect in lagu sameeyo qowsiga ama ninka caaqilka ahaa dad ay yimaadeen dadkiisi waxay sameey jireen ama karaameynta ay karaamay jireen waxba aanan u arag waa la imaanayaa qoodsiga xaafadiisa ama caaqilka xaafadii uu maamulanayay qamiis walbana waxay leeyihiin wax la qoodka ama maaragtay kulama qamiista ay sameystaan ay isku wareystaan maxaa nugu soo zaa'iday yaa yimiday marka kulanka qamiista markii la soo waxa la leeyahay qof baa yimiday dukaanu xagga ka dhistay jiifkana ma uusan soo mareen caqabada iyo nacayb jiifka ka yimida dadka loo soo mariya meeshaas marka waxa ka timid caqabada ah qofkaanu inuusan dadkiiba tixgelinaynin Soomaalidana uma sameynaynin inay tixgelin waayaan ninka caaqilka ah waxay u sameynayeen aqoon daro because dawladda South Africa sida dawladaha kale qofka markay sharciga qaxootiga siisa ma dhahdo dhaqankeena waa noocaas hadaa meeshaas tagtid saas u dhaqan saas hadaa aragta saas yeel ma aysan dhihin warqad intee siisay waxay tiri waxaad bax South Africa ka raadsa waxa cunto aqoon darra marka wuxuu ku sameeyeen aqoon darradii looguma garaabayo jiifki wuxuu u arkaa inay u sameynayaan kibir because wadankan wuxuu wadan la kala sareeyo apartheid ka soo dhacay dadka la gumeysto marka ninka caaqilka wuxuu arkaa dad banaanka ka yimid oo sidii kuwii hore amal raba hadda inay ayaga ay uga saramaraan oo ay isu kibriyaan marka isafgaran waa dhinaca dhaqanka ah ay u asal ah Soomaalida iyo waxa ka dhex taagan South Africaanka ilaa saacadan mar hadii taas jirto oo dabcan dadku way fahmayeen in cilad meesha uga timide maxaa loo daba qaban waayay oo inta looga daba tago dhaqankaas wax looga bedeli waayay wallahi waxay ku xiran tahay hadba community-ga meesha degan hadii aan tusaale ahaan ku siiyo North West marka anagu aan deganaynay markaan aragnay dhibaatada noocaas isla marka waxbaan isku daynay inaan ka qabanno waxaan isku daynay inaan jiifafkii la kulanno dadkeena meesha degan ee jiifafka aan isku xirno ilaa heer community-ga meesha degan ee funeraalada ama tacsiim markay dhacdo ay ka qayb gali jireen qoodsiga ay marsii jireen waxa ay dadka siinayaan laakiin waxa ka tambatay maanta markii aad taringareyso Soomaaligan oo uu hawsha la qabsado Soomaalida fadhi ma laha uu ka tagay barito mid kale cusub ah imaanaya wixii oo dhan marka hadda soo bilaabo marka dhibaatadaas ah inaan nahay dad socotada dhibaatada ahna waxa xataa u dheer dhinaca crime-ka